Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidee baan u xadi karaa qof kale laptopkiisa passwordkiisa oon u bedeli karaa passwordkan ku rabo. Sida ugu fudud baan cashirkan idinku tusayaa maanta. Saad ula socotiin markaad rabtid inaad password qof ka bedeshid ama laptopkaaga ka bedelisid password, waa inaad qortaa passwordkii hore current password waxa la yiraahdo. waa passwordkii hore laptopkaagu isticmaalay. Marka haddana ka aqoon wax faa'iido ma leh aad ku bedeli kartid aw awoodi mayd. Hadda waxaan barayaa maanta sida loo hagareeyo adiguna garanaynin current passwordka saad ku hagareyn lahayd. Bas waxaad tagaysaa desktopka, kadibna waxaad gaari computerka, kadibna waxaad leedahay right click, kadibna manage baad leedahay sida arkaysiin. Sidan waxay ku tusaa sida ugu fudud ee loo jabiyo qof kale laptopkiisa passwordkiisa. Marka wax karanta qof kale passwordkiisa waa bedeli kartaa adigoona ogaan passwordkiisii hore, yacni waad hagareyn kartaa. Walaal haddaad ku cusubtiin ka iloobina like ama subscribe. Markaad tagtiin xagga computerka, kadibna right click, kadibna manage tagtiin sama nagu subaxay marka hore, kadibna waxaad tagtiin xagga ku qoran tahay horta waxaan rabaa inaan tuso passwordkaygii hore wuxuu ahaa Barcelona sadarkiisiin waa Barcelona ku qoran. Marka okay baan leenahay. Marka wuxuu u ogolaanaya inaan bedelo passwordkii, laakiin haddii wax kala qoro wuxuu weydiinayaa haddana khaldo kana password cusub ma gelin karo laptopka sadarkiisiin. Way diiday waayo passwordka hore waxaan geliyay wuxuu ahaa Barcelona. Marka waxaan tusayaa passwordkii hore wuxuu ahaa Barcelona. Marka waan hagareynaa. Marka xagga joogtiin waxay tagaysiin local userka sadarkiisiin. Local userka markaad joogtiin waxaad tagaysiin userka, kadibna xagga swipe ku qoran tahay right click, set password baa leediin, kadibna proceed baa leediin, kadibna new password sadarkiisiin swipe ayaan ku qoray sadarkiisiin, kadibna confirm password swipe, kadibna okay baa leediin. Waan bedelay passwordkii anigoona weydiin current passwordka. Waa sida loo hagareeyo ama loo jabiyo qofka passwordkiisa Windowskiisa. Imkaan tusayaa Barcelona qori saan tusayo Barcelona igu jiray waan bedelay. Marka waxaan qoray swipe ku bedelay passwordka cusub sadarkiisiin. Marka ku ogolaaday. Marka waa sida ugu fudud ee loo jabiyo qof kale computerkiisa haddaad rabtid inaad passwordka ka bedeshid ama naftaada haddaad ilowday passwordkaagii computerkaagii oo rabtid inaad bedeshid. Markaas ugu fudud. walaalayaal hadduu muuqaalkan cajabiye ku soo dhawaada channelka daawashada oo subscribe, like comment-kiina muhiim iyo like-niina. Mahadsantiin.